guddiga dardargelinta ganacsiga Puntland oo dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta booqasho ku tagay magaalo xeebeedka Garacad ee Puntland. waxaa socdaalka guddigaasi hogaaminaya gudoomiyaha guddiga ahna wasiirka maaliyadda Puntland mudane Maxamed Faarax Maxamuud iyadoo wafdiga qayb ay ka ahaayeen xubnaha kale ee guddiga ay ku jiraan wasiirro iyo xubno kale. ujeedka socdaalka guddiga ayaa lagu sheegay inuu daaran yahay qiimeynta iyo tayasiinta maxjarada xoolaha Puntland si kor loogu qaado dhoofinta xoolaha iyagoo caafimaad qaba. waxaa kaloo ay u socdeen qiimeynta iyo talabixinta kaabayaasha ganacsiga Puntland sida dekedaha iyo kastamyada maaliyadda. guddigan ayaa maanta booqasho ku tagay dekedda caalamiga ee Garacad oo ay ka socoto shaqo baaxad leh dhinaca dejinta iyo dhoofinta badeecadaha iyo dhismaha jambiyada qabyada ah oo si dardar leh ku socda. waxaa kaloo ay soo indhaindheeyeen maxjarka xoolaha Garacad oo loo diyaariyay xanaanaynta xoolaha inta aan laga dhoofin dekedda caalamiga ee Garacad si loo hubiyo caafimaadka iyo badqabka xoolaha. guddigan oo dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland ayaa booqashadii ugu horreysay ku tagay magaalo xeebeedka ganacsiga Puntland ee Boosaaso iyadoo mar haddii hadafkeeni jilba jil hidaraacay culliyo hirqanaysa mar hadday halwanayso inta heensa la saaray higsanayna adduunka harkii loo xafladeeyo hilqa looga cayaaro dekedda habikoosa laga gooyey higaaga hanqaloocsiga guusha mar haddaan la hashlayno hididiila muraalka hon afriigta mashlaysay ma jaraynta hanaanka hagitaanka adduunka mar haddaan horkacayno la wareegnay hoggaanka hadaa min fadlillaahi nasrigan hilqa weyne u hallaasiya kaayey mid hidaaya kaleeto ka hareera ifayso haybadaynu suga